بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، أحبائي في الله، waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta bulshada Soomaaliyeed inaanu u soo gudbino mowduuc la magac baxay an-nafaxaat ar-ramadaaniyya oo macnihiisu uu yahay udgoonka soonka. Allah caraf badanaa soonku. waxaan doonayaa marka koobaad inaan dhaho biidnillaahi tabaaraka wa tacaala saaxiibkay iyo sheekhayga Shaxambali oo dhinacayga midig fadhiya bal inuu noo qeexo. Shaxambali, soon maxaa la yidhahdaa xagga luqada iyo xagga sharciga؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. صون وحال يراهدا حق اللقطة أفك عربية الإمساك عن الشيء، شيء لقى قاب صدو أما لقى أفهيستو أما لقى استاغو أي وحال يراهدا صون. فقولي إني نذرت للرحمن صوما. وإلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسا كويري مركو مريم كهالليي مركي أي ديدي إني لها ذشو ضدكي سؤالها ويدينيي كويدينيي عن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. حق الشرع كان الصون وحالو هذا الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. إنو قفكو كأف هايستو cuntada iyo cabitaanka iyo waxyaabaha kale ee wax afuriya sida jimaaca iyo wax la mid ah adiga oo waliba niyadana meeshaasi ku haynaya oo aan niyeysan oo qofkii hadduu matalan cunto iyo cabitaan uusan haysanin iyo markuu cuntada iyo cabitaanka isaga daayo tacabudan lillaah ilaahay cibaadadiisa darteed way kala duwan yihiin. xilliguna waa fajarka saadiqa ah. marka fajarka saadiqa ah midka beenaalaha ma aha, waa fajarka salaada subax markay soo gasho ilaa ay qorraxdu ay ka dhacdo. sheekhana jazakallahu khayran. haddii aanu garanay soomka xagga luqada iyo xagga sharciga intaba waxaan ognahay inuu maraaxil iyo qaybo soonku soo maray. talow meeqa maraaxil buu soo maray? jazakallahu khayran. soonku wuxuu soo maray marka la soo ururiyo 3 marxaladood. marxaladda koobaad waxay ahayd xilli wuxuu soo maray soonka la soomo 3 maalmood min kulli shahrin iyo maalinta caashuuraa la yidhaahdo. maalintaa la soomo ayuu soo maray. wuu ka sii gudbay oo wuxuu u gudbay marxalad qofka la doorimaad gelinayo qofkii rabana inuu soomo, qofka aan rabin inuu soomana uu markaasi qof miskiina uu quudinayo. yani qofka soo awood leh ayuu khiyaar leeyahay. hadduu doono wuu soomayaa, hadduu doonana qof miskiina ayuu siinaya. dad badan maanta arrintaas ay jiri lahayd, wax badan bay ka faa'iidi lahaayeen. kolba dadka un lacagaha haysta iyo dadka hantida leh ee fursad bay u ahaan lahayd. laakiin walilaahi alxikmatu albaaliga. marxalada saddexaad waxaa weeye in soonka lagu farad yeelay oo laga dhigay wax dadka oo dhan u dhexeeya. marka ninka qofka mustatiici ah, rag iyo dumarba, lab iyo dhadigba, qofkii awoodana in uu min tuluuci alfajri ilaa ghuruubi shamsi inuu soomo, isla markaana laga khafiifiyey qofka da'da ah oo qofka isaga ah la yidhi isagu ama mariidka ah la yidhi isagu dee markaasi ama mar kalaad qadayn ama haddii kale. si wanaagsan sheekhna. aqsaamta waan ma garanay maraaximta soo maray. hal lahu aqsaamun akhar? nacam, aqsaam kale ma yelee? maraaxishuu soonka soo maray baynu ka hadalnay. hadda marka soonka noocaas oo kale ah wuxuu leeyahay aqsaam. waa 2 qaybood buu soonku u qaybsamaa. soon waajib ah iyo soon sunno ah ayuu u qaybsamaa, waajib iyo mustaxab. marka haddana waxaynu xoogga saarayna waxaa weeye maadaama uu soonkii fooda inagu soo hayo inaan soonka waajibka ah ka hadalno. soonka waajibka ahi 3 qaybood buu isna u qaybsamaa. soonka ramadaan ee hadda fooda inagu soo haya iyo soomka loo yaqaano soomul kafaaraat. qofka markuu qofka uu dhaarto in uu dhaartiina uu jabiyo, yani nadar galo. iyo soonka nadarka ah waa soomu ramadaan, soomul kafaaraat iyo soomu nadri. qofka hadduu yidhaahdo ilaah waxa haddaad isiiso ama waxa haddaan waan kuu soomi, ama haddii kale wuu dhaartay kadibna dhaartii buu jabiyey, kadib qofka isaga waxaa lagu yeelanaya kafaara gud. waajib buu markaa noqonayaa. 3 qaybood ayuu soonka waajibka ah u qaybsamaa. ama soonka mustaxabka ah ee isagu sunnada ah, horta xikmadda ilaahay subxaanahu caza wajalla oo addoommadiisa u naxariistay. soonka sunnada maxaa laga wadaa? tatawuca maxaa laga wadaa? tatawucu laba ujeedduu leeyahay. in qofka darajaad sare ilaahay uu siiyo oo uu marka maadaama uu waxaan isaga si
iskaa wax u qabso oon waajibkoodan u sameeyey inuu darajaad sare oo dadka aysan wada gaarin inuu ku gaaro iyo in uu ilaahay oogu kabo kii waajibka ahaa wixii ka dhinaaday wixii ka khaldamay labadaas ilaahay subxaanahu wa tacaala soonka mustaxabka soonka sunnada ah uu leeyahay soonka sunnada marka wuu fara badan yahay dhow waxaa ka mida maalinta carafa ka mida nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maalinta carafo oo la soomo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka quudarraynaya oon rajaynaya inay sanadkii lasoo dhaafay iyo sanadka soo socda labadaba ilaahay igu dembi dhaafo marka carafo waa maalinta sagaalaad ee dilxija xujayadu ay carafo taagan ay yihiin banka carafo ay dadku waran yihiin ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ay u cibaadaysanayaan rabbina uu malaa'igtiisa ugu faano waxaa kale oo ka mid ah laakiin maalinkaasi waxaa loo sunneeyaa qofka ligayri alxaaj aan xajka joogin qofka xaajiga ah looma sunneeyo liannahu hawsha uu ku jiraaba u baahan energy iyo in uu cunto u cuno midda labaad waa yowmu cashuuraa maalinta tobnaad ee bisha muxaram loo yaqaano bisha koobaad ee islaamka ee muxaram soomaalidu safar bay tidhaahdaa bisha muxaram cafwan bisha muxaram weeye bisha iyada ah tobanka maalinka ay tahay in la soomo nabiguna sal allahu alayh wasalam xadiidu fi saxiix albukhaari fi saxiix muslim cafwan wuxuu nabigu ku sheegay inuu iyadana maalinta ayadaa lagu dhaafo sanadkii lasoo dhaafay wuxuu kaloo nabiga sala allahu calayhi wasalam uu niyeystay dadkana u sheegay lain baqiitu ilaa qaabilin laasuumanna taasic wuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbi ajmaciin marka sagaalka iyo tobankaba in la soomo way wanaagsan tahay sheekh sunnooyinkaasoo dhan waa naxariis ilaahay waa naxariis rabbi waxaa subxaanahu tidhi caza wajal yaa imaa qofkan in ajirkiisa kor loogu qaaday darajaadkiisa yaa imaa in wax loogu kabo ama khalal uu sameeyey in lagu kabo ma jiraan sunnooyin kale ayagu nacam way jiraan waxaa kaloo ka mid ah maalinta isniinta iyo maalinta khamiista in la soomo min kulli isbuuc nabigana sal allahu alayh wasalam kama fi xadiidi caaishata kaana annabiyu sala allahu calayhi wasalam yataxaraa siyaama alithnayn waalkhamiis imaam axmed iyo tirmidi baa soo saaray sidoo kale nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu sheegay oo ku cileeyey arrintaasi in acmaasha ilaahay xaggiisa loo kor yeelo nabigu wuxuu raaciyey fa uxibu an yurfaca camalii wa ana saa'im وهل هناك زيادة؟ نعم يوم إن مثلا بشيبة صدح مالمود أيضا لقى صومه صدح مالمود لقى صومه بالكستا الروايات كان النبي كان صحيح عدينا أيام البيض صدح يتوبنك أفر يتوبنك شن يتوبنك نبي وحيري صلى الله عليه وسلم والحسنة بعشر أمثالها معنا والله بيتوبن بلود بلول بهذا صدح مالمود كصونته صدن يلح مالمود باصونتي والحسنة بعشر أمثالها إذا وصلت سند وي صيام الدهر بمركز سيدا كنا قنيا حديثك يا أبو هريرة ين اللوبن نبي صلى الله عليه وسلم وحيدر دارمي صدح الرمود وصدح مالمود إن من كل شهر كصومه لبضل ركعات ضحى إيو إن أن أوتر قبل أن أنام انت aanan seexanin in aan witirka aan ku dadaalo soonka ugu fadliga badan marka sunnooyinka markii aad dib iskugu noqoto aan dib ugu noqono sheekh soonka ugu fadliga badan waa siyaamu nabiyullaahi daa'uud sidoo nabiga sallallahu alayhi wasallam waana siyaamu yawmin wa iftaaru yawmin waa in maalin la soomo maalina la afuro waana midda ugu adag jirku waad aragtay markuu soonka xoogay 3 maalmood uu la qabsado jirku gaajada iyo oonka uu la qabsanaya laakiin markaad maalin aad aragto maalin aad ilaahay darti u soonto cuntada ugu istaagto waa soonka ugu fadliga badan inta lagama badin karo sida nusuustu ay cadaysay waxaa kale oo kamid ah soonka isna sunnada bisha muharram oo dhan in soonka la badiyo tobanka ugu horeysa bisha muharram in iyadan soonka guud ahaan la badiyo maadaama middan iyada sida goonidan u sheegnay maalinka tobnaad bay ahayd laakiin bisha muharram iyadana in tobanka in ramadaan ahaan nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam afdalu siyaami bacda ramadaan wa shahrullahi almuharram bisha muharram weeye iyadana in la soomo darajaad sare ayaa lagu helaa waxaa kaloo ka mid a sheekhii maalinta sagaalka maalmood ee carafa maalinka sagaalada carafa ama sagaalka maalmood ee carafa ugu horayso iyadana guud ahaan waa in la soomo lianna soonku waa min alcamali saalix nabigana wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam maa min ayaamin waalcamalu saalixu fiihinna axabu ila allahi min hadihi alcashar sheekh kulli sunanka haddaad soo sheegtay soo ma moodid in badan oo ka mid a inay sunan mahjuura ay yihiinoo dadku in badan ayna ka warqabin marka muxuu yahay tawjiihaadkaas siin lahayd dadka muslimiinta cumuuman inay dadku ogaadaan nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam khayr ma jiro ilaa wadallana calayh wuuna tusay
shar ma jirto ilaa wuu inooga digay marka inaan dhuuxno alfaada uu nabigu sallallahu alayhi wasallam adeegsanayo iyo cilalka uu ku cilaynayo iyo in waxaan cibaadada ilaahay subxaanahu wa ta'ala soonku inuu ka mid yahay waxyaabaha ilaahay loogu dhawaado waxyaabaha ugu qiimaha badan ayna ogaanana in soonku uu yahay wax ilaahay subxaanahu wa ta'ala ikhlaaska iyo daacada madrasa weeye marka in waxyaabahaas oo dhan laga faa'iideysto ayaan dadka nafteedii dadkaba aanu dardaarmay sheekhan lagama dhigi karo runtii waa xalaqa aad iyo aad u macaan kullu dalika duruusta ku jirta waxaa weeye sanadka oo dhan inay tahay sanad cibaado ah yaa imaa inuu yahay shay waajiba yaa imaa inuu yahay shay sunno ah muxaram baan soo marnay carafaan soo marnay shacbaan baanu soo marnay ashhur xurum oo dhan baa iyagana ku jira ayaa alikhwa runtii lagama dhigi karo mawduucan waa mawduuc aad iyo aad u qiimo badan uulaa xalaqaatina xalaqadii koobaad mawduucii la magac baxay udayga iyo carafta ramadaan halka ayaan caawa ku daynaynaa sheekh aad baad u mahadsan tahay kelimadaada qiimaha badan wajazaaka allah khayran axsan allahu ilayka